dalka ku yaala koonfur bari Yurub leh kumanaanka jasiiradood ee ku baasan badaha badanaana loogu yeero rugta ilbaaxnimada reer galbeedka ee Greega iyo dalka isutaga Imaaraadka Carabta ee ku yaala galbeedka Aasiya dacalkana ku haya cirifka bari ee jasiiradda Carabta ayaa mar kale muujiyay muhiimadda ay leedahay xiriirka u dhaxeeya labada dal kaasi oo in dhaweydba ay u arkayeen labada xukuumadood inuu xaggooda mudnaan weyn ka leeyahay heshiis ay si wada jir ah u saxiixeen labada dal waxa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta ugu sareysa labada dal arrimo waaweyn ayaa heshiiska labada dal diradda lagu saaray waxaana ugu muhiimsan difaaca iyo amniga labada dawladood iyagoo eegaya duruufaha dunida ka jira xaaladaha gobolka ku hareeraysan iyo mudnaanta dawladaha ay u leedahay arrintan waxay labada dal garwaaqsadeen muhiimadda ay leedahay iskaashiga difaaca laba geesoodka ah ee u dhaxeeya labada dhinac kaasi oo lagu muujiyay heshiisyada fududeynaya hababka iskaashiga labada dhinac waxaana ay muujiyeen rabitaankooda ku aadan ilaalinta iyo sare u qaadida xiriirkooda difaac gaar ahaan dhinacyada tababarada farsamada iyo dhowlatusyada wadajirka ah labada mas'uul ee ugu sareysa dalalkan ayaa si wadajir ah u soo dhaweeyay saxiixa is-afgaradka kaasi oo ku saabsan iskaashiga amniga la dagaalanka dambiyada la soo abaabulay iyo la dagaalanka argagixisada sidoo kale waxa ay diradda ku saareen wada hadallada labada dawladood siyaasadda arrimaha dibadda arrimaha gobolka nabadda iyo deganaanshiyaha labada dal waxay ku celceliyeen sida ay uga go'an tahay sii xoojinta iskaashiga istiraatiijiyadeed ee dhinacyada siyaasadda dibadda gobolka amniga iyo difaacuba ra'iisul wasaaraha Greega ayaa ugu hambalyeeyay Imaaraadka xilliga ay ku jirto xubinta aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay 2022-2023 Sheikh Mohammed bin Zayed ayaa ku celceliyay in Imaaraadka Carabta uu si toos ah u taageersan yahay in Greega uu tartamo kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay 2025-2026 Imaaraadka iyo Greega waxay dib u xaqiijiyeen inay ka go'an tahay inay ka wada shaqeeyaan horumarinta nabadda iyo ammaanka caalamiga ah ee adduunka labada hogaamiye ayaa ka wada hadlay saameynta istiraatiijiyadeed ee mustaqbalka fog ee ka soo kabashada adduunka ee COVID-19 hogaamiyaasha ayaa muujiyay sida ay uga go'an tahay taageerada dadaalada lagu horumarinayo nabadda iyo xasiloonida heer gobol iyo heer caalami iyadoo lagu saleynayo sharciga caalamiga ah oo uu ku jiro sharciga badaha waxay sidoo kale cadeeyeen in hababka siyaasadeed iyo wada hadalka oo uu ku saleysan mabaadi'da asaasiga ah axdiga qaramada midoobay ay si ahaanayaan haga ee loogu talagalay in lagu gaaro xal waara oo loogu talagalay dhammaan khilaafaadka waxayna carabka ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay in si nabad ah lagu xalliyo khilaafka u dhaxeeya dalalka waxayna sidoo kale xuseen in ilaalinta xasiloonida iyo barwaaqada ay weli tahay mudnaan koowaad si loo gaaro nabadda iyo amniga gobolka arrinkan waxay isla garteen in waxyeelaynta madaxbanaanida iyo wadajirka dhuleed ee labada wadan midkoodna ay wiiqayso xasiloonida iyo nabadda gobolka ra'iisul wasaaraha Greega ayaa ku celiyay cambaareen xooggan oo ku aadan weeraradii argagixiso ee ka dhanka Imaaraadka Carabta waxa uu xaqiijiyay garab istaaga iyo taageerada buuxa ee Imaaraadka Carabta ay ka siinayaan weeraradaasi labada hogaamiye waxay muujiyeen kalsooni ay ku qabaan awood ay u leeyihiin inay wax ka qabtaan caqabadaha mustaqbalka ee ku saleysan xoogga iskaashiga ballaaran iyo iskaashiga adag ee jira kaasi oo gacan ka geysanaya kordhinta amniga labada dhinac xasiloonida horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga astaanta u leh labada dal